xamaanta shir jaraayid magaalada muqdisho ku qabtay mas'uuliyiinta xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed shirkan jaraayid ayaa waxaa looga hadlayay amniga koonfur galbeed doorashada la filayay inay dhawaan ka dhacdo maamulka koonfur galbeed mas'uuliyiinta xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa waxay walaac ka muujiyeen amniga deegaanada koonfur galbeed waxayna sheegeen haddii amniga wax laga qaban waayo ay keeni karto xasilooni darro ka curata deegaanadaasi sidoo kale waxay walaac ka muujiyeen dib u dhacyada mar walba ku imaanaya doorashada maamulka koonfur galbeed ugu horeyn waxaa si wada jira goobta uga hadlay gudoomiyaha xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed Gure Xaaji Xasan iyo gudoomiye ku xigeenka xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed Siciid Jaamac Qorshe laakiin talaha waxay tahay koonfur galbeed oo ka mid ah isteedada Soomaaliya oo ururka ahaa in ay doorasho soo socoto ay abuurantay in siyaalo badan siyaasad cusub oo aad moodaysay in xilligii doorashada ahaa in wax ay aloosmeen ayna tahay runtii markii u horreysay oo muxuu ahaa ay doorasho madaxweyne ay ka dhacdo tii Sheekh Shariif markii laga yimaado oo ay ahayd xilli erbi ay dooratay laakiin hadda ay tahay xilli ay dooranayaan xildhibaanadii koonfur galbeed waxay noqotay markay aad marba dib dhac ku yimaado marba sii durugto wixii raagaan kale hadalkeedii leedahay sidaa ajrigeed anagu waxaan marka u istaagnay inaan mahadbaliga ka badan ka bixino dhinacyo badan tusaale aan ka samayno oo qoraalka ay ku jirto laakiin waxaa jirta waxa weeyaan in ay Soomaaliya hadda doorashooyin ay ku jirto xilli doorasho lagu jiro marka waa xasaasiyad aad u badan oo kulul sidaas ay jirto ana waxaan leenahay waa in qodob walba ay waxeeda iyo isku filaato ee doorashadeeda noqoto mid iyadu ay yeelato ee deegaanadu ay iyagu tahay ay leeyihiin marka waxaa laga yaabaa in isfahan waa fara badan oo ka dhex abuurmo ummadihii deegaanka deganaa iyo iyo maamuladii kaleeto waxaan u malayaa wax walba in dinaad bay leeyihiin marka anagu hadda haddaan lahay xarunta ka hor dhici maayo laakiin tusaale wax qabaa waxaya maamulka koonfur galbeed maadaama uu hadda muxuu ahaa kow istijaabenayo sharci ahaan markii u horreysay uu noqonayo maamul xor ah oo madaxweynihiisa soo dooranaya in muxuu ahaa ay noqoto hadda in gacan weyn lagu siiyo in Soomaaliyeed joogtaba waa deegaanada Soomaalida ka mid ah waa haddii Soomaalida maaragtay si loo eegana wala walba xilliga la yiraahdaa wuxuu isku filaadaan hatta maxay sida caado ahay xarunta Soomaaliyeed mar walba u taagan tahay in ay dadka xusuusiso ama ay ka hadasho xawaasha taagan sida caado ahayd maalmaha waxaa aad ugaas baa ka jiray maamulka koonfur galbeed marka waxaa maanta go'aansaday inaan fikirka ka qabno isla ku habboon tahay inaan u jeedino ummadda Soomaaliyeed annaga mar walba ka raacayno dhinaca wanaagga ee aan rabno mar walbaba in sida toosan loo raaco waxaa soo jeedinaa faahfaahintooda ugu dambeyntii waxaa shirka jaraayid ay soo diyaarisay xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed warbaahinta u aqriyay Professor Cabdiraxmaan Nuur Diinaari waxaan markan idin aqrin doonaa shirka jaraayid ee ay xaruntu ka soo saartay arrinta ku saabsan doorashooyinka ka dhici doono maamulka koonfur galbeed sida aad oo socotaan waxaa waddooyinka la qorsheynayay in maamulka koonfur galbeed uu ka dhaco doorasho lagu soo dooran doono madaxweynaha kadib markii xilligii ama waqtigii ka dhammaaday madaxweynihii hore xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed waxaa u muuqato cabsi iyo walwal fara badan oo dhanka amniga ah oo haddii la hanan waayo keeni karta xasilooni darri ka curata deegaanka koonfur galbeed waxaa walwalkaas lagu dhaliyey kadib markay muddo 3 jeer ay dib u dhacday xilliyadii la rabay ama lagu dhawaaqay in la qabto doorashada ka dhici doonto maamulka koonfur galbeed waxay leedahay muhiimad weyn waxayna astaan u noqon kartaa doorashooyinka maamulada kale ee dalka iyo hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda
oo dalka Soomaaliya ay maanta wadada saartay doorashooyinkaas waxay mas'uuliyadda uga culus saaran tahay maamulka koonfur galbeed halka ay dowladda dhexe ee federaalka ay mas'uuliyaddeedu ka saaran tahay korjoogtaynta ama observer inay ka noqoto habsami u hirgelinta doorashada ka dhici doonta koonfur galbeed haddaba si loo xaqiijiyo inay dhacdo doorasho xor ah waxaa muhiim ah oo aan xarun ahaan hoosta ka xariiqaynaa in ay muhiim tahay in la ilaaliyo cadaaladda isla markaasina si xor ah ay xildhibaanadu u doortaan cidda noqon doonta madaxweynaha koonfur galbeed haddaba si loo xaqiijiyo inay dhacdo doorasho xor ah waa in la helo cadaalad iyo kalsoonida shacbiga koonfur galbeed xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed waxay ku talinaysaa in baarlamaanka koonfur galbeed ay iskood isu maamulaan si looga fogaado wixii carqalad keeni kara loona daayo hawsha ay leeyihiin baarlamaanka ugu dambayntii xaruntu waxay dhinac kasta ugu baaqaysaa in la ilaaliyo amniga xasiloonida isla markaasina dadweynaha koonfur galbeed ay ugu baaqaysaa xaruntu inay door wax ku ool ka qaataan amniga iyo sidii xasilooni ay doorashadaas ugu dhici lahayd xaruntu waxay si gaara ula dardaarmaysaa xildhibaanada codka leh in ay mas-uuliyad weyn iska saaraan gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee ay u idmadeen shacabka ku noqon koonfur galbeed soomaaliya waa mahadsantihin nasteexa cabdulqaadir xasan TV-ga caalamiga ee Kalsan magaalada Muqdisho.